Asalaamu calaykum saaxiibayaal kulanti waxaan wanaagsan soo dhawaada maanta waxaan idiin wadaa cashir ku saabsan lacagaha bitcoin-ka adigoo aan passport ama waxyaabo kaleeto oo ka hortaagnaa hadda inaad iibsato lacagaha crypto-ga sidoo kaleeto maanta waxaa ku tusi doonaa ama caawa xil walba ku tahay muuqaalkan daawanayso luuq yar aad ka soo gali kartid ama aad ka iibsan kartid lacagahan bitcoin-ka oo sharciyeysan oo nidaamsan oo platform la aaminsan yahay oo ka mid ah waladyada ugu caansan ee lacagaha bitcoin-ka ama crypto-ga laga iibsado. Okay, Soomaali badan waxaa aragtay sharaxayso lacagahan bitcoin-ka cryptocurrency-ga iyo lacagahan coins-ka ka sheekeynayso sharaxayso saas loogu faa'iidaa. Laakiin hal mar muuqaal ah YouTube ka daawatay oo dadkaas ama Soomaalida badankood ay sharaxo inaad dhageysatay ma baxday ma iibsatay ma ku dhaqaaqday su'aasha isweydiinayso ama aad isweydiinayo ama aan mar hore aniga kasoo fikiray waxay tahay waa taas sababtoo ah wax aadan hadda awoodin ama aadan awood u lahayn inaad samayso oo wadda dheer u baahan ayay ku tilmaamaan sidaas darteedna waa ka niyad jabtaa run ama been. Okay, taasna halkaas aan ugu gudubno waxaan ku bari doonaa qaabkaad u iibsan lahayd lacagahan crypto-ga aad ugu faa'iideysan lahayd lacagna ugu sameyn lahayd faham yaraan kaa siinaa kadibna waxaan ku tusaa qaabka loo soo iibsado. Kadib waxaan rabaa isla muuqaalkan markii aan sameeyo aad daawato aad dhamaysato inaad tagto ama shaqadii aan kuu tilmaamo aad qabato bitcoin-ka aad soo iibsato. Sidaad shaashada kaaga muuqato lacagta bitcoin-ka 2009 halka bitcoin wuxuu joogay 1 senti, 2010 wuxuu joogay halka bitcoin 7 senti, 2011kana $15. Haatan maxaas leedahay ama meequu joogaa halka bitcoin? Halka bitcoin xilligan ama muuqaalka duway wuxuu joogaa $46,332.30 halka bitcoin waa $46,000. ka waran haddii ay iibsan lahayd 10 xabo ama 50 bitcoin xilligii uu joogay 7 senti macaash waxaa ku dhufsan lahayd aan inaba aqliga galaynin. Haatan aniga waxaa iibsaday lacagtan oo sida la qiyaasayo sanadaha soo aadan cirkaas gali doonto waxaa la dhahaa TRX waxaa iibsaday kaliya $3.18 ama $3 iyo xoogaa senti ku iibsaday. waxaan hadda haystaa 41 TRX. ka waran TRX tan ama Tyron lacagtan la dhaho hal sano ka bacdi ama 6 bilood ka bacdi halkii TRX haddii ay tagto $2,000 haatan aan haysto 41 TRX meeqa lacagaan ka faa'iida? aad iyo aad u mahadsan tahay ilaa iyo heerkan ilaa iyo daqiiqadahan haddii aan muuqaalka daawanaysa isla soo gaarnay. haatanna waxaan ku tusi doonaa qaabkaad u iibsadeed lacagaha coinska ama crypto currency oo adduunka u socdo adigoo aan haysan mastercard. ani muhiimadeedu waxay tahay muuqaalkan markii aad daawato wixii aan kuu sheegay ama wixii aan kuu tilmaamay ficil ahaan u sameey wixii aad fahmiyeysana isla muuqaalkan kusoo laabo commenti ugu soo qor wixii ku dhaway anytime xili walbo radian ku ahay commentiyada waan akhriyaa cashir kale ayaan kasoo sameynaa wixii ku dhaway anigoo solution ama xalinayo. Okay, marka hore appkan soo degso Trust Wallet haddii iPhone aad wadato App Store ka soo degso haddii Android wadatana Play Store ka. marka aad furto sida tan ayuu u yaalaa aniga haatan $3.80 ay ugu soo hartay lacag badan aan ka baxsaday. marka lacagta u baahan tahay waa USDT haddaysan hore ku oolin qaybta sare taabo halkan ku qor USDT ka bacdi tan ugu sareyso ku qoran tahay TRC20 tigta soo saaro ama ku soo dhufso. ugu dambeyn dashboard-ka application-ka ay ku imaan doontaa click-si markuu gudaha kuu keeno aniga 2 jeer aan $30 miyaan kala baxay aan waxyaabo kale ku sameysanahay. marka send iyo receive iyo meel saddexaad oo buy oo leeyahay marka waxaad taabanaysaa halka ku qoran tahay receive oo ah lacag in lagu soo diro linkiga waxaad dhihi doontaa copy. marka copy markaad dhahdo qofka sarifle lacag kuu soo dirayo waxaa u diraysaa linkigaas. aniga marka sarifle inaan kuu tilmaamo maraba hab kaleeto waxaan rabaa luuq yar inaan kaa tuso bahasha aan aniga ka soo galo ama lacagta aan kaga shubto.
okay Wanagspeed account ma leedahay? Okay, xariif magaalaad tahay waxaad tagtaa Wanagspeed qaybta withdrawga kadib lacagtan aa koobinta kuu saaro ku dhufo kabacdi waxaad dhahdaa confirm. Markaa confirm dhahdo cadadka lacagta la bixiyaysa geli qaybta kore, qaybta ka hooseysana linkiga aan hadda trust wallet aan copy kasoo dhahan receive-ka ayaad qaybta hoose gelinaysaa kabacdi confirm. Hal daqiiqo wax ka yar lacagtaada waxay ku imaan doontaa trust wallet USDT-ga. sidaasna lacagaha bitcoin-ka la midka ay haatan sarakac sameeyno aad ku iibsan doontaa 6 bil 2 bil 1 bil kadib ama 15 maalin kadib isbedel $2 ama $3 iibsatay ayaad isbedel ku arki doontaa. Haddii aad qof dulqaad leh, haddii aad 2 sano aad sugatidna waxa waaye lambar waaweyn aad ka sheekay doontaa. Waxaan ku rajeynaa marka nasiib wacan. Sidoo kale sanadkan waxa waaye lacagaha sarakaca ugu muhiimsan sameynaya soo geli doona $2 $1 $5 aad ku iibsato lacag bitcoin la mid ah coin ah oo 2 sano ka bacdi $40,000 ku noqonayso. ma aha wax la heli karo.